waxaanu cambaaraynaa shakhsi walba iyo qof walba oo deegaanka degan oo nabadgelyada deegaankan wax u dhimayaan cambaaraynaa waxaanu raaligelin siinaynaa dadkii la rasaaseeyay iyo guriyihii la rasaaseeyay iyo saxaafadii sida xun gacan qaldan looga dhaqmay baanu iyadana raaligelin siinaynaa waxaanu leenahay magaaladu waa nabadgelyo anagaa barasaabkiya anagaa mas'uuliyiintiya anagaa Soomaaliland anagaana hadda ka nimid waxaan dadka u sheegaynaa leenahay haddii ciidan soo weerari karta oo Soomaaliland ma jirto ciidan military nagu soo socdaana ma jiro deegaankan anagaa mas'uulka ilaahayna mas'uul looga dhigay maadaama ilaahay mas'uul looga dhigay ma adkaysan doono umana dul qaadan doono qof shiddo iyo dhibaato ka abuura ama beesha dhexdeeda ka sameeya khalkhal siyaasadeed waxaan u sheegayaa labada nin ee Cali Khaliif iyo Xagla Toosiye jooga mas'uulanaha gobolka ka ah Xagla Toosina gobolka mas'uulka ma aha Cali Khaliif mas'uulka ma aha waxaan leeyahay ku jooga odaynimo iyo wanaagnimo ku jooga ma abuuri doono dadkan walaalaha ee wada dhashay ee iskuulka in qoriyo inta la isku dhiibo guriga lagu rasaasayo iyo guriga la isku dilo oo halka dhiig ku daato taa waan cambaaraynaa